بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد يا هيبد يا شرف يا كرامة يا أمان إسكاله. إلهي سلام كنجدي أنه حوج يحيلا منك كنسن. الحمد لله نعمة الإسلام، الحمد لله نعمة الإيمان، الحمد لله على كل حال، الحمد لله دائما وأبدا. الحمد لله سوري وهذا الله يقول قارئ خير كتشعل إلى سبحانه وتعالى دنبيدين إذا دنبيد والدينتين هدافو أنت حنوسن الله عافيه، أنت مرجيسن مركت الله كدرقاد، وأنت مراد كلا مراد كذا خير الله سيو. أنت لمتين الله ونحرس تقبريده هو واسعي آمين يا ربي. سوري وهذا أحبابي في الله، ما ننتين ما نقرح بدن الله ينوغدي، وما نن عبادة قرح بدن الله إيمان الله ينوغدي، ما نن إن بدن إلهي حسن الله ينوغدي. وربي أيها سلسين تسكلا الله نسلسيو حقها نقصه. آمين. سوري وهذا ولا له قالي آمان توحى وذا tobanka habeen ee u dambeeya bisha barakeysan ee khayrka badan ee aan ku jirno ee Ramadaan. tobanka habeen walaalaha qaaliga fadliga ay leedahay iyo waxyaalaha loo ka baahan yahay ayaan walaalaha qaaliga rabaa inaan ku baraarujiyo. soo dhawaada walaalaha qaaliga fiidiyowgana like tahay ga hilmaaminina in badan like ta saara xabaabi fillah si walaalo badan u gaaraan oo baraarugaan. ma sha Allah walaalaha qaaliga ah habeenka khayrka badan leh tobanka habeen ee ugu dambeeya bisha barakeysan ee khayrka qabtay ayaan ku jirnaa Ramadaan. tobankii hore waa inoo soo dhamaaday, tobankii dhexe ee dambi dhaafka ayaan ku jirnaa. waxa inoo haray tobankii naaraha la iska xoreynay oo uu ku jiray habeenka aadka u fadliga badan ee laylatul qadriga uu ku jiray. uu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam tobanka u dambeeya ka raadiya, waliba ka raadiya tirooyinka isdheer ayuu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam. walaalaha qaaliga ah habeenka laylatul qadriga ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiraahday waa habeenka khayr badan 1000 bilood ayuu ka khayr badan yahay. habeenkaasi waxaa soo degay habeenka malaa'igta ayaa soo degaysa iyo jibriil ayaa soo degaya. إلهي سبحانه وتعالى وحلي هبين كاسي وهبين نبتقليو أحبابي في الله إلا فجر كوكسو بحيو وهبين نبتقليو. ما شاء الله هبين كفلق بدن له وإلهي سبحانه وتعالى إنو شيغي وكنك بلود كخير بدن أحبابي في الله. كنك معنيه بلود كخير بدن واحد هن علماء وحي أدقنتاه سيديتن إيا صدح سنو إيا أفر بلود أيو أدقماه كنك بلود أيو أدقمان. ما شاء الله هبين كفلق badan leh ee khayrka badan. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday ka raadiya tobanka dambe waxaadna ka sii raadisaan tirada isdheer ayuu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam. habeenkaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday waa la ii sheegay kadibna waa la hilmaansiiyay buu dhahay si ummadda uga faa'iideysato ayaa tobanka dambe ay u weyneeyaan ay u raadiyaan ay macnaha acmaal qurux badan u leeyimaadaan ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala nooga qariyay. ahbaabi fillah waxaan wada ogsoonahay ummadihii inay ku horeeyay waxay lahaayeen cimriyo dhaadheer oo in badan ay ilaahay ku xusaan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku cibaadaystaan. ummadda nabi maxamed cimrigeedu wuu yar yahay 60 sano ayaa qiyaasta lagu qiyaasay. marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala habeenka fadliga badan la wuxuu inoo siiyay cimrigeena oo yar. marka habeenkaas qofkii haleela wuxuu la mid yahay asagoo 83 sano iyo 4 bilood cibaadaysanayay. maxaa ka khayr badan ahbaabi fillah marka aan dadaal sameeyno. Aisha waxay leedahay kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yajtahidu fi 10 al-awaakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. wuxuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid aad iyo aad u dadaala tobanka dambe ee Ramadaan si uu u dadaali jirin qayrkood oo siduusan maalmaha kale ama bilaha kale u dadaali jirin ayuu macnaheedu tobanka dambe ee bisha Ramadaan aad buu u dadaali jiray. حديث قال عائشة الله كرر للنقطة وحي تراهذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام لحديث يعني بتقولي كركي ساعته وحي تراهذي إذا دخل 10 الأواخر مركي صوغران طبعا كهبين أضم بيش رمضان شد من سره قنت جيسايو شري وأحيا ليله هبين كيسن وينين شري ويقد أهل كيسن وبراروتين شري أو آد بوددال أسمين شري قنت جيسايو أتكيسن شري بيت عائشة ما شاء الله ولا لها قالي حديث كلا عائشة وحي leedahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid ictaafa kaana wuxuu yactakifu 10 al-awaakhir tobanka dambe ee min Ramadaan ayuu ictikaaf jiray xataa tawafaahu Allah ilaahay ka oofsaday thumma
ثم اعتكف وحا اعتكاف جري أزواجه من بعده أزواجيسي أيانا كدب اعتكاف جري ما شاء الله نبي عليه الصلاة والسلام آد أيو ددال السمين جري tobanka dambe ee Ramadaan axbaabi fillah annagana waxa rol model nooca waxaan ku dayanaynaa waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee marka walaalaha qaaliga maxaan loo ka baahan yahay tobanka dambe ee habeenka khayrka badan uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiraahday raadiya oo waxa ka raadisaan tobanka u dambeeya Ramadaan oo waxa ka raadisaan tirada isdheer uu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaan loo ka baahan yahay waxa loo ka baahan yahay inaan jihaad nafteena galino axbaabi fillah tobanka bari ee khayrka badan inaan acmaal qurux badan la imaano inaan hurdada yareysano inaan quraanka akhrisano inaan dhikriga badino nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu alhayy walmayt nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday kan macnihi kan ilaahay xusaya iyo kan ilaahay xusay waxay kala yihiin qof dhintay iyo qof nool maxaan loo ka baahan yahay tobanka dambe inaan in badan ilaahay xusno inaan u dadaalno dhikriga ku dadaalno in aan acmaasha wanaagsan ee qiyaamka ku dadaalno inaan salaad badan tukano inaan ducaysano nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday adducaa huwa alcibaada ducada waa cibaada ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiraahday ud'uuni astajib lakum bariya waa idinka ajiibayaaye marka maxaan loo ka baahan yahay axbaabi fillah إن أن دعاء إيمانه إن أن إيمان ذكر تربض إن على إيمانه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت وحي ترى هذيك وحن كيري بيت رسولك إله يا رسول الله رسولك إله يو هدي أن وافقوه بين ذا خير كبضن تبن كبريء أدم بي بشر رمضان هبين كفضل كبضن ليلة القدر هدي إلهي سبحانه وتعالى يوافجيو محن كدعاء استابي ترى هذي وحكي رسولك عليه الصلاة والسلام كدعاء دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم الله يو إنك عفو أذيك أيا وعافية تحب العفو عافية يا تعيش هاي فاعف عني إلهي ويعفي ما شاء الله تبارك الله دعاء أيها النبي عليه الصلاة والسلام كدعاء ودعاء لو دعاء طبعا كدم بشهر رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا الله تحب العفو فاعف عنا يا الله أيها النبي عليه الصلاة والسلام كدعاء محان لو كبهي دعاء يا ذكرك يا قيامك قرآن أخرسك إن بتصنع أيانا لو كبهي أحبابي في الله وآد أن badsano oo walaalaha qaaliga dadaal sameeyno gabdhuhu dadaal sameeyo walaalaha qaaliga ah ha ku mashquulinina cunada ha ku mashquulinina awlaadiina iyo dhikriga ilaahay idin ka mashquulin yeysan habeenada quruxda badan in ka mashquulin nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis laga warinayo habeenada kamid ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam soo baraarugay markaasuu wuxuu dhahay subhanallah caawa maxaa soo degay fatahaad iyo khazaa'in iyo macnihi khayraad tira badan maxaa soo degay hal la toosiyo kuwa guryaha hurda buu dhahay dumar ayuu tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwaasoo adduunyo huwan oo ka qaawan aakhira ayuu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam runtii dumarku aad iyo aad ay cibaadada ugu gaaban yihiin maxaana loo ka baahayaa ahbaabi fillah inaan dadaal sameeyno inaan baraarugno inaan khayrka ku xirannahay in mar walba aan raadina khayrka waxyaalaha fitanta iska ilaalino ayaan la ka baahay ahbaabi fillah oo aan walaalaha qaaliga ah habeenadaas khayrka badan leh ee habeenka fadliga badan uu ku jiro aan ka dhexraadino aan cibaado qurux badan la imaano runtii qofkii haleela wuxuu la mid yahay asagoo 83 sano iyo 4 bilood asagoo cibaadeysanay maxaa ka qiimo badan habeenkaas khayrka badan leh insha Allah walaalaha qaaliga dadaal aan sameeyno aan ahbaabi fillah waxa sheegay talooyin hore alaab la isticmaalayo hore in kugu sheegay tobanka dambe walaalaha qaaliga ah waxyaalaha ay sameeyaan dadka ehlu khayrka ah ee hurdada jecel waxa weeye waxa la badsadaa tobanka dambe waxa la badsadaa kafeeyga shaaha kulul shaaha caleenta badan ayaa aad loo badsadaa runtii aniga waa soo isticmaalay shaaha caleenta ku badan tahayna waa soo isticmaalay oo hurdada wuu ka yar kicinayaa kafeena waa isticmaalay alxamdulillah deemaantay waxaan maraynaa 7 adda kafeega waagaas aan shaaha caleenta badan isticmaali jiray kafeega ma aqoonin
badan runtii laakiin maba la heli jirin meeshaan ku noolaa wuu ku yaraa laakiin maanta meel walbuu yaalaa markii aad isdareento inay hurdo badan ku hayso hurdada iska yaree nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenadan khayrka badan leh wuu ka haajiri jiray waxyaalaha raaxada oo kale hurdada tirada badan iyo raaxaysiga wuu ka haajiri jiray wuu ictikaafi jiray annagana asaga role model noo ah waa in aan dadaal samayno gabadhu sawjkeeda ay macnihii ku baraarujiso sawjku gabadhiisa ku baraarujiyo in badan macnihii gabadhu ilmaheeda ku baraarujiyo caruurta dadka maxay xooga leh iska celin kara macnihii inay soo jeedaan la toosiyo maasha Allah tabarakallah diinteena aan weyneyno habeenka khayrka badan leh fadliga badan leh aan raadino ahbaabi fillah ayana loo ka baahan yahay maasha Allah tabarakallah kafeega aad buu ku caawinayaa dadka hurdada jecel hadaa tahay kafeega aad u cab habeenkii saacad fiican seexo gelinka hore ha cabin kafeega markaad afarto maasha Allah tabarakallah maxay aad tukato taraawiixdaadii degdeg u seexo 8 saac soo kac maasha Allah tabarakallah intaas quraanka akhri ilaahi in badan xusi ducayso maasha Allah tabaraka waliba ducada aad u baso ahbaabi fillah ducada waa cibaado ayuu dhahay ilaahayna wuxuu dhahay ibari ay waa idinka ajiibayay wax walba oo aad ku haminayso wax walba aad rajaynayso wax walba ilaahay hordhigo rabbiga raxmaanka ee raxiimka kuma khasaarin doono ilaahay subhanahu wa ta'ala habeenada fadliga badan leh aan raadino ilaahay hana waafajiyo ilaahay hanaga dhigo kuwa ducadooda aqbalo ilaahay subhanahu wa ta'ala wax walba oo duco walba aan la iimaano sanadkiisa insha Allah ilaahay cimri iyo cibaado suuban hanagu gaarsiiyo ahbaabi fillah ma sha Allah dadaal hala sameeyo walaalaha qaaliga ah habeenadan khayrka badan leh aan 10 habeen aan si macnaheedu diyaarsano 10 dhexe inta lagu jiro ilmaha iidi wax walba si diyaarso 10 u dambaysa ma sha Allah cuntadii hadaaba karisaba cibaadada u soo jeenso insaa sameeyo ahbaabi fillah kafeegana hamoogaanina ma sha Allah aniga ayaa in badan ku soo dadaalay in badan macnihii soo isticmaalay ma sha Allah tabar hadhow markii 10 bari ka baxdina waa iska deyn karaa runtii aniga mar kale ma isticmaalin aan 10 bari ahayn ma isticmaalo ahbaabi fillah walaga yaabaa habeeno de noloshayda isoo mara isdhaho aad u soo jeed habeenka in badan ilaahay bari isdhaho ina isticmaalo way dhici kartaa laakiin 10 bari marka isticmaalo meeshii ma uga sii tagaa ma sii isticmaalo dadku waxay dhahaan kafeega hadii la badsado qofku u baahanaya maxay sheeg mar kale inuu isticmaalo runtii ma u sii baahan aniga intaas isticmaala mana isku badiyo maxay sheeg wax yar aan ka isticmaala kadibna horey ma uga sii tagaa 10 bari hadii dhamaato horey ma uga tagaa ahbaabi fillah marka waxaan isticmaalaa gelinka dambe ayaan isticmaalaa dadka hurdada jecel runtii aniga waxa ahay marka 2 ragcadood 3 ragcadood tukado hadaa masaajid ku tukanaya hadaa saa dhinaca isugu tuuro dadka hurdada fudud baa ahay isla markii baa gamca marka waana hurdo fudud ahay isla markii waa soo kaca isla markiina dadka gamca ayaan ahay alxamdulillah ilaahay qofka haysan hasiyo marka waxaan sameeyaa kafeegaas cabaa runtii maxanihi hadba ina soo weyseysatid hadba inta soo weyseysatid maxay aseexatid hurdadii inay ka jabto maaha laakiin waa in macni kafeega marka cabo ma sha Allah tabaaraka firfircooni ma dareema cibaadadaydiisa qurux badan ina u gudanayo quraanka akhrin karo ma sha Allah tabaaraka marka ahbaabi fillah waa dareem kala hooyo ilmo yareed haysato markuu xanuunsan yahay mar soo jeedaysa wax badan maalintii laga yaabo inay seexan oo hawshii ku badan tahay marka saadarteeda oo isticmaal ahbaabi fillah marabno inaan ka qadno habeenada khayrka badan leh sidaas oo kale ahbaabi sameeyay in kale walaalo badan oo ila soo wadaaga runtii waan weydiiyay gabdhaheena khayrka badan leh waxay igu dhaheen faadimo anaga kafeega waa isticmaalnaa qaxwada waa isticmaalnaa shaaha caleenta ku badan tahay oo kale waa isticmaalaa waxyaalo kulkulul habeenkii waa isticmaalnaa bay dhaheen ma sha Allah ka faa'iideysta ahbaabi fillah hadii kafeega ku dhibaayo shaaha caleenta badan leh waa okay qaxwada iyadana qaxwada lagu badiyay waa okay iyada laftirkeedu marka ma sha Allah tabaarakallah dadaal sameeyay ahbaabi fillah 10 habeen khayrka badan leh aan dhexda xirano insha Allah in badan
إلهي حسنه ما شاء الله حسك إلهي كنوليا قرآن أخرسك قيامك الدعاء ما شاء الله تبارك الله الدعاء إن بدن إسلامك الدعاء أديك الدعايسو إهلكاga iyo dadkaaga iyo qof walba jecesha u ducee anigana ahbaabi filaa ducadaha iga reebinina waliba walaalaha qaaliga tobanka dambe ee khayrka badan leh waxa in ka codsanaya walaalaha qaaliga ah aniga dacwad baan ku jiraa walaalo badan baa noloshooda ku bedelmatay waxa jira walaalo dhibaateeya icaaya waliba dad igu soo dad iisoo kireysta oo dad dhaha soo caaya gabadhaas dhaha walaalahaas oo dacwada ku jira أحبابي في الله ضد كاس إنه إلهي حق تسمها بارينه لكن إلهي إنه حق تستمن كبري خير كبدن أحبابي في الله إنه إلهي سبحانه وتعالى شرط وضع إبال مريو إنه إلهي سبحانه وتعالى المعني حق تسو وإلهي سبحانه وتعالى حق جرنسي رنتي وان كدعوذي وحق بسنة يملهن وقف رنتي إلهي سبحانه وتعالى وقبن كروايه قف بن آمنه وقف أدونك إسكالي وحكالي إساسية هاي علمي كستعنا عليه قف ده ويه رنتي إلهي بقبن كره دين تنقفل بحق ساري هاي حديث كنبي أي آيات القرآن كعندنا ملهن ولا له قارئة أنتم كبريق فضلك بدل إيسو دعاء إنه إلهي دت كشرطه ذا قبته إنه إلهي حق تسو قفل بالدعوة ده ماشي سأوكوده علماء أنا وأركت أنت ترى الأجهين شيخ الشيخ شبيلي شيخ محمد إدريس محشيخ علماء أنا ويتربيه شيخ درير شيخ مصطفى علماء ويتربيه قفل بماشي دعوة كذا قف كل جاني قف عاية ملهن رنتي ولا لها قالقة مرة ربوا واحد هين دين تأنجا إسكاله مرة دعي كرتو وواحد لو دين كرم ملهن دتكاس ولا لها قالقة أنت كريان قعدتني يا دعاء أنا وإدريس دعيني يا قفل بمراد بولي هاي قفل بميل بكباهية قفل بإنه إلهي كباهي تروها من ذا خير كبدن لي إنه إلهي سبحانه وتعالى فرحد وإنه قول أميو إنه إلهي أعماشا قرح بينك أقبل الدعوين كان إنه أقبله إذن كون ولا لها قارئ إيسو دعية إنه إلهي دعوة إلى قرب قاله داد كاشرتونا إلهي إبال مريو إلهي أو حق تصو